Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal. Heerarka kala duwan ee ardayda ayaa waxay inta badan sameeyaan qaladaad ka hor istaagi kara inay guul ka gaaraan waxbarashada iyo guud ahaan horumarkooda. Muuqaalkan oo u gaara ardayda iyo xitaa waalidiinta ayaan idinkula wadaagi doonaa 4 qalad oo ay inta badan sameeyaan ardayda tahayna inay ka fogaadaan ee ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Soo dhawaada mar kale. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. Waatan tusmada muuqaalka. Haddii aadan haynin waqti aad ku dhamaysato muuqaalka, qodobkii aad u aragto inuu muhiim ku yahay, waad u gudbi kartaa. Mahadsanid. Waxaa jira shabaqyo badan oo ay ku dhacaan inta badan ardayda marka ay timaado waxbarashada, inkasta oo ay jiraan arday ka badbaada shabaqaas. Haddii aad tahay arday ama waalid, ila dhamayso muuqaalkan si aan uga wada qayb qaadanno horumarinta ardaydeena. Si gaar ah ayayna farxad iigu tahay haddii aad ka faa'iido mawduucan. In ka badan 70% ardayda dunida ayaa ka taga quraacda subaxdii, iyadoo la og yahay in quraacda ay tahay cuntada ugu muhiimsan 3 waqti ee maalintii. Daraasad ayaa sheegaysa in ardayda ka taga quraacda ama u isticmaala booska quraacda waxyaabo fudud sida cabitaanada tamarta yar laga helo inay aad uga adag tahay fahamka iyo xifdinta casharrada marka loo barbar dhigo kuwa quraacda. Haddaba haddii aad leedahay caadadan, waa inaad si dhaqsi ah ku joojisaa si aad heer uga gaarto waxbarashada iyo guud ahaan horumarkaaga. Mid ka mid ah qaladaadka ugu waaweyn ee ardayda sameeyaan ayaa ah akhrin la'aanta casharrada xilliga loo baahan yahay. Guud ahaan akhrinta, gaar ahaan midda casharrada, waa waajibka ugu weyn ee ka saaran ardayda waxbarashadooda. Laakiin nasiib darro, ardaydeena badankood waa exam oriented. Kaliya waxay wax u bartaan imtixaanka. Aad ayayna ugu liitaan akhriska. Haddii ay noqoto inay wax akhriyaanna, waa marka uu soo dhawaado imtixaanka. Haddii aad u fiirsato ardayda marka uu imtixaanka soo dhawaado, waxaad arkaysaa wiilasha oo aad u soo buux dhaafiya masaajidda iyaga oo wax akhrinaya, iyo gabdhaha oo xitaa marka ay jikada ku jiraan buug akhrinaya. Haddaba su'aashu waxay tahay, maxaa diiday in maalin walba maadooyinka la soo qaato la akhriyo, xilliga imtixaankana la dulmaro oo kaliya? Haddii aad arday tahay, waxaan rajaynayaa in maanta kadib aad joojin doonto dhaqankaas foosha xun, kuna raaxaysan doonto macaanka waxbarashada insha Allah. Xifdinta iyo fahamka waa 2 shay oo kala duwan, waana complementary, yacni way isdhamaystirayaan, oo aan kala jeedo in ardayga uu isla isticmaali karo xifdinta iyo fahamka. Way jirtaa xilli waxbarasheed xifdintu ay qasab ku tahay ardayga, waana marxaladda dugsiga hoose dhexe, maadaama ardayda heerkan dhigata ay da'dooda yar tahay, waana qaabka kaliya ee wax lagu bari karo. Laakiin ardayda dhigata dugsiga sare iyo heerarka ka sarreeya kuma filna, kumana habboona xifdin kaliya, oo waa inay ku daraan fahan. Waxaan mar walba aragnaa ardayga oo isku dayaya in uu qabto oo uu xifdiyo wax walba oo macalinka afkiisa ka soo baxa, kuna dul qoranayo macnaha ereyga ama jumladda isagoon fahamsanayn isticmaalka iyo ujeedada guud. Sidoo kale waxaad arkaysaa arday marka uu imtixaanka ku soo dhow yahay xifdinaya qeexitaan, gabay ama cashir uusan macnihiisa fahamsanayn si uu ugu gudbo imtixaankaas. Laakiin waxaa xaqiiqo ah in aadan waxba ka haynin wixii aad soo xifdisay imtixaanka kadib, waana cagsiga ujeedada dhabta ah ee waxbarashada oo ah in waxa aad barato ay weligaa ku anfacaan. Daraasad ayaa sheegaysa in 40% ardayda aysan helin hurdo ku filan oo ah ugu yaraan 7 saacadood si ay ugu fiicnaadaan waxbarashadooda. Hurdo la'aanta ayaa dhibaato weyn ku ah ardayda maadaama ay keeni karto waxyaabaha hoos u dhiga waxbarashada sida fahamka, xusuusta iyo xifdinta oo yaraata. Hurdada ayaa door muhiim ah ka ciyaarta xusuusta qofka maadaama maskaxdu ka hesho hurdada tamar, taasoo aad arki karto marka uu qofku hurdada ka soo kaco in maskaxdiisu ay fresh tahay, diyaarna u tahay in wax walba ay qabato. Waxaa kaloo lagu taliyaa in ardayda ay samaystaan nidaam hurdo joogto ah, kaas oo waqti isku mid ah ay seexdaan, ugu yaraanna ay hurdaan 7 ama 8 saacadood, ay ka saacidi karto inay heer sare ka gaaraan waxbarashada. Waxaa jira mawduuc aan kaga hadlo muhiimadda hurdada ay leedahay. Haddii aad jeceshahay inaad wax badan ka ogaato, mawduucan dhammaadkiisa ayaad ka daawan kartaa. Ugu dambeyn, haddii aad arday tahay, qodobadan aan ka soo hadalnay midkee ayaad inta badan isku aragtaa. Sidoo kale ma jira qodob aan ka tegay oo hoos u dhiga heerka waxbarashada ardayda. Ugula wadaag qaybta faalada. Mahadsanid. Inta aan ku kulmi doono mawduuceena xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.